وهاجاك dhegeystayaal barnaamijkii hore aad dhegeysateen waxa inoo joogay waqtigii la dilay ninkii la oran jiray Kofil iyo gabaygii Said Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhdii ka sii wadayna imankana bal waxaynu eegaynaa mabdii sayidku uu lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waa tahay waxaan markaa hadaba idinku celinayaa aw jaamac Umar Ciise oo arrintaasi balino marka balgabayadii dadku dalka markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayo maaragtay muxuu ahaayey in dawladnimada ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraadii kula hadlayey culamada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka waran ilma doociya idinkaygu diinaye dalkaad igiiseen baa dacagta igu kiciyey waa markay culammadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu wuxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarka waran ilma doociya idinkaygu diinaye dalkaad igiiseen baa dacagta igu kiciyeye shan haloo idin daradhan idinka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degaguri dilaalkii la siiyana dadna kama helaysaan inii idinka raabaana ajri iyo ducuu heli dibna deeqa aydi eebbahay dirinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawa ugu daranteen wanka doosha weyne madaladaa u xulantiin bandiga mayska duurtaan dawarsigu ma fiihne awyaalow ma diinteen jihaadka ma u dareertaan danan iyo seef dadka maa ku qaadaan darmaan haad labooqiyo doolaan maa u buushaan wiilka diirka qaadka biirna ma ugu dadabtaan doodhiga xamaalka dalka kamaa ka goysaan idinkaa dalkabalee dogod ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dalbaax maxaa ka ballahay erigaa waxaan u deliishanayaa inuu dawladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkabalee dawlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dalbaax maxaa ka baylahay magdiisa wixii muujinayey mar kaleeto waqti uu samray waayadii dambayto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan layna shiro haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasir haddaan waayey ciidoo naqle iyo inaan nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruuxiga naxa oo inuna saba jeegta miyaan waayey naxariisa liyo neriga jaahiisa marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasir waxay ku tusaysaa inuu hawo ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska xiriyaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed waxay ku diidanaayeen maxayse doodoo ahayd aw jaamac Umar Ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkaayeen sayid maxamed inuu ahaa haliyey waddaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horay loo arag marka afar gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanaya mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda indhahantugu degay bal afartaa gabay kan ugu horreeyaan berbera aan ugu horraysiinna waa cali jaamac ahaayeen oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa intay keligaaye allahayow arwaaxada adaa qoray arsaaqoodi allahayow addoommuhu aday ku irkanayaan allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura'e allahayow ma awdo xaqaa soo iftimisaaye allahayow adunba warxana kii itaal darani allahayow adaan ee xoqoon eedna aan gelini allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsaday in kaloo itaalimi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo kii ilmaan dumarka allahayow ummadihii nin dilay uba jaqsiinaayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha dilka allahayow nowcayda iyo
habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'minku ileeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid ummada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku antiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoon laawaha eeyu daba joogtay allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaayo allahayow arooriyo iyo gooraliyo leylka allahayow ibliiska hallayu ka ashkatoonaayo allahayow hanagu eegin ku ergaan nahay allahayow addoommaannu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahay waxaan u leexanayaa markaa in la odhan jiray cali maxamuud salantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabayuu mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi ii imow oo aan ku siinayaa waa nin aad loo tixgeliya ayuu ahaa markaasuu gabaygaaliyo wuxuu yidhi waa taan afdaba yeerin jiray yaroo waxaan siiye uma yeelo hau diyaarayn haysna yeeriye mayarkiyo imaankoodna ah yerisniintiikaaye nebi yacquub bacdalya'sigii yaa safaayiriye allena u yeel waxaduu yuudayo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahana u yeel samirkii aayuuye taniyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuukana dhigaye yaa ayuhanibaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaaddoy ka yimid odhanin yaabuuye waxbayuu istiqmaalmuhu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii loo tiri yuu annii rabine yuufuuna dhaha qaladiisu waa yuuxan roor jirin marka waa diidayoo wuxuu yidhi u tegi maayo abtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal la ysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeto inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday waxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur guray tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii la laayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diin le cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkiiye nin caddaaday oo caalimah oo madaxa cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcaddoo dila rabbi iyo nibaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya in wadaadku ceeb horin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo haadda la cunsiiyo rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele mooddo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weyddiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu uu wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran calidhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega
dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada daw kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen diriyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodayey u mariyey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waa cay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddee waxa la yidhi rag colloobay cay iyo abxumo waa camaladoodii wahaag dhegaystayaal intaasna halkaa kaa gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladdii ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcaddiisa ugu adag ahayd degmada la ydhaahdo taleex waxaa ingiriisku deetana halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka hadhay daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida eema ka tirsan dalka etoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan wakhtigaasi ingiriisku ah niman soomaaliya oo odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagana xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxmiyadda hase yeeshee sayid maxamed cabdalla xasan ergadaasi waa uu diiday wakhti yar kadib sayidka iyo raggiisii waxaa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka soomaalida ee deggan dhinaca sohdinta etoobiya dabadeedna iyada oo ay taageero ka heleen ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen imey oo ku taala dhinaca etoobiya halkaasi oo ay gaadheen bishii oktoobar sannadii 1920 dhammaadkii sannadkaasi oo ahayd 21 bishii disembar ayaa sayidku ugu dhintay imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxaa da'diisu wakhtigaasi ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahirad qarshe haynoo mariyo dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtane dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idiin qubaahayaa dib u go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu edeenka rari sidaa dameeraaye giddigeedba soomaali baan dayrka ka ahaaye dhaxaan darawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabaada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu iishaayeen mantu aan diyaafadiyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka
وهاجاك دقيسيال انت هدب aan kaga gudubno halgankii Sayid Maxamed Cabdalla Xasan dagaalkii uu kula jiray Ingiriiska